السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وضيال ميل وضبط ضافة عالم كان نقضى ونيسان رمضان كريم كسو دواد وركي لان تافكا صوماليا تلفزيون كقرن كايتوبيا وحيدين ورمية أنيقو حمدي محمود وزارة عافمات كدلكا يا شيكتي إن أي مالنتي شلي فيروس كورونا يودنتين أفرتني لبقف سدو كلي باريتان لغو سميي تضبكون صدح بقول لبي طبنقف أيا وحا لغي هلي kun 792 qof oo kamid ah dadkaasi tirada dadka cudurka ka bogsatay maalintii shalay ayaa lagu sheegay inay dhan tahay 610 qof baaritaano la sameeyay ilaa iyo hadda dalkan Itoobiya ayaa lagu xaqiijiyay in dalkan Itoobiya laga helay fayraska corona 242,028 qof tirada guud ee dalkan Itoobiya u dhimatay fayraska corona ayaa ilaa iyo hadda gaadhaysa 3,300 toddobaatan qof halka tirada dadka guud ee ka bogsaday fayraska corona ay dhan tahay 179,315 qof dadka u liita ee waqti xaadirkan ku jira una baahan daryeelka degdega ah ayaa waxay tiradoodu gaadhaysaa 1,820 qof madaxweynaha maxkamadda guud ee dalkan Itoobiya Marwo Maaza Shanafi ayaa bulshada dalka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada loo qabtay qaadashada kaarka codbixinta wariyahayga Nimaan Cismaan ayaa faahfaahinaya Marwo Maaza Shanafi madaxweynaha maxkamadda guud ee federaalka oo ka hadlaysay arrimaha doorashada lixaad ee dalka dhawaan ka dhici doonta ayaa waxa ay tilmaantay in xeer ilaaliyaasha garsoorayaasha askarta iyo qaybaha kala duwan ee amniga aan loo ogolayn in ay si toosa ama si dadban siyaasad ugu kala qaybsanaadaan balse waxa ay tilmaantay in ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah taasi oo ay ku dooran karaan cidda ay rabaan ዳኞች አቃቢ ህጎች ወታደሮች እና አጠቃላይ ከጸጥታና ደህንነት ጋር የተገናኘ ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች madaxweynaha ayaa hadalkan waxay ka sheegtay kadib markii ay booqatay mid ka mid ah goobaha doorashooyinka si ay u qaadato kaarka codbixinta Marwo Maaza Shanafi ayaa waxa ay tilmaantay in codbixintu ay tahay mid waajib dastuuri ah taasi oo muwaadiniinta saaran isla markaana loo baahan yahay in codkooda ay muwaadiniintu ku taageeraan cidda ay rabaan መምረጥ ትልቁ መብታችን ነው ትልቁ ድምጻችንን ህዝቡ qaadashada kaarka codbixinta ayaa marwadu waxay ku tilmaantay in kaliya ay qaadanayso wax ka yar 10 daqiiqo waqtiga codbixintuna ay intaasi ka sii yaraan karto si kastaba ha ahaatee dhammaan muwaadiniinta ku dhaqan dalkan Itoobiya ayaa waxay ugu baaqday in ay muujiyaan tixgelin dheeraad ah xilliga ay qaadanayaan kaarka codbixinta ama waqtiyada ay doorashadu socoto waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in haweenka iyo dadka jilicsan muhiimad gaar ah la siiyo ሴቶች ደግሞ በብዙ ነገር ስለሚጠመዱ በስራ waxa dalkan Itoobiya laga dhagax dhigay xarunta daaweynta heerka sare ee bukaanka cudurka kansarka ee urur goboleedka IGAD oo ay lacagta ku bixi doonto ay dhan tahay 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah maamulka Addis Ababa ayaa dhismaha xaruntani kansarka ah ugu deeqay dhul cabirkiisu dhan yahay 200,000 oo square meter oo ku yaala nawaaxiga Boole oo ka ah kirada xor xarunta casriga ah ee urur goboleedka IGAD ee dhismahan ayaa waxa la go'aamiyay in la dhiso sanadkii 2012 waxaana la filayaa inay door muhiim ah ka qaadan doonto la dagaalanka cudurka kansarka waxa la sheegay in xaruntani ay adeeg daawo oo heerkeedu sareeyo siin doonto bulshada kansarka ku dhacay ee gobolka munaasabada dhagax dhigga xaruntani ayaa waxa ka soo qayb galay ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa Adanej Abeebe wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Liya Tadesse xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Warqine Gabayo iyo wakiilo kale oo ka kala socda wadamada kale ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD warshada East Africa Holding iyo sidoo kale warshada laga leeyahay dalkaasi Shiinaha ee West China National Holding ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay warshad soo saaraysa sibidhka oo ay ku baxayso 350 milyan oo bir taasi oo laga dhagax dhigay magaalada Dirdaba mar kale wariyahayga Nimcaan Cusmaan
heshiiskan ay kala saxiixdeen labada shirkadood ee sibidhka ee lagu kala magacaabo East African Holding iyo shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee West China International Holding ayaa waxa uu yahay mid la doonayo in lagu dhiso warshadda sibidhka ee National Cemento taasi oo ku kacaysa 350 milyan. Gudoomiyaha guddiga East African Holding oo lagu magacaabo Busayo Tadale ayaa waxa uu sheegay in dhismaha warshadani uu yahay mid kor u qaadaya yaraynta baahida dhinaca sibidhka ee deegaanka ka jirta, waxaana uu sheegay in ugu yaraan 5,000 oo tan ay maalintii soo saari karto halka sanad walba ay soo saarayso 300,000 oo tan oo sibidh ah. በግንባታ ወቅት ከ2,000 ለሚሆኑ ሰራተኞች እንዲሁም ፕሮጀክቱ ተጠናቆ የማምረት ስራ በሚጀምርበት ወቅት mas-uulka ayaa waxa uu tilmaamay in inta uu socdo dhismaha ay ka qayb qaadan doonaan 2,000 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo shaqo abuur ka heli doona marka ay warshadani shaqada bilowdana la gaarsiin doono 10,000 oo qof in ay shaqo abuur ka helaan warshadani sibidhka. Geestiisana wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalkan Ethiopia Malako Alabal ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay mid muujinaysa isku xidhnaanta ganacsatada dalka gudihiisa iyo midda dibadda. ቀደም ሲል ለውጭ ባለሀብቶች ያልተከፈቱ እንደ ሲሚንቶ ፋብሪካ አይነት ፕሮጀክቶች ለውጭ ባለሀብቱ በመከፈቱ ምክንያት በርካታ የውጭ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ላይ ለማሰማራት ከፍተኛ ፍላጎት አሳይተዋል። afhayeenka golaha federationka ee dalkan Ethiopia Aadan Farax oo qayb ka ahaa munaasabadani dhagaxdhigga ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay qayb weyn ka qaadanayaan sidii loogu soo gabagabayn lahaa dhismaha warshadani waqtigii loogu talagalay. የድሬዳዋ አስተዳደርና በየደረጃው የሚገኙ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አመራሮች እስካሁን እያበረከታችሁ ላለው ድጋፍ ምስጋና እያቀረብኩ ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ለምርቃትና ለምርት እንዲበቃ የእናንተ ድጋፍ እስከ መጨረሻው ወሳኝ በመሆኑ አደራዬን አሁን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። afhayeenka golaha doorashooyinka afhayeenka golaha federationka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda ismaamulka Diridhabe iyo kuwa deegaanka Soomaaliduba ay si wada jir ah gacan uga geysan doonaan. Si kastaba ha ahaatee heshiiskan ay kala saxiixdeen labada shirkadood ee East African Holding iyo shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee West China International Holding ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad marka laga yimaado shirkad warshadda lagu magacaabo Lema taasi oo labadan shirkadood ay si wada jir ah uga hirgeliyeen gobolka waqooyiga Shawa. وهاجاك داوديال ولي واحد داون إنسان وركا لان تافكا سوماليجي تلفزيون كقرنكا أنشحة جدي صعد كحلقة دورشة أي على شيء إن لو بهني هاي إن لدقن قليو حلقة صعد دورشة وريها يا محمود أي فافا هنا. guddiga qaran ee doorashooyinka Itoobiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo sharciga ololaha doorashada guud ee wareegga lixaad ee dalka loogu diyaar garoobayo sidii ay xisbiya siyaasadeed ay u tartamayaan ay tixgeliyaan sharciyada ku saabsan ololaha doorashada sharciga ku bannaan ee loo talagalay in xisbiyada siyaasadeed ay ka taxadaraan marka ay xilliga ay ololaha doorashada ay sameynayaan. qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ayaa sheegay in guddiga qaran ee doorashooyinka u baahan yahay in tallaabo uu ka qaado meelaha qaarkood ololaha ka jira. gudoomiyaha xisbiga Hibir Ethiopia la yiraahdo Mudane Girma Baqala ayaa tilmaamaya in meelaha qaarkood deegaanada ololo ku saabsan dhinaca doorashada oo dugsiyada sare ee waxbarashada iyadoo la isticmaalayo ay ka jireen isla markaasina cadeemo kala duwan ay ka hayaan arrintaasina loo baahan yahay guddiga qaran ee doorashooyinka Ethiopia in uu arrimahaasi tallaabo ka qaado. dhinaca kale Mudane Daraja Baqala oo ah gudoomiyaha xisbiga xoreynta Oromia ayaa waxa uu sheegaya in isagu xitaa iyadoo isku dayayo in uu diiwaan gashado 20 musharax oo tartami doona doorashada guud ee wareegga lixaad ee dalka qabsoomeysa ay u suurtagali weyday ku adkaatay arrimahaasi sharci darrada ah ee isla markaasina laga horjoogsaday diiwaan galinta musharaxiinta uu doonayo inay doorashada ka qayb qaataan loo baahan yahay in guddiga qaran ee doorashooyinku wax ka qabto arrimaha noocaas oo kale ah. dhinaca kalena uu tilmaamay in loo baahan yahay oo xisbigiisu uu ku dhaqaaqo hab waafaqsan sharciga loogu talagalay anshaxa ololaha doorashada xilliga la sameynayo loo baahan yahay in la tixgeliyo isla markaasina uu ku baaqay in baraha bulshada xisbiyada siyaasadeed qaarkood iyo waliba baraha bulshada dhexdiisa ololaha iyo waliba in iyadoo magaca xisbiga siyaasadeed ee tartamaya inta magaciisa la soo qaado aflagaadeen iyo falal foolxun lagu soo daabaco oo isla markaasina baraha bulshada lagu soo daro ay tahay arrintaasi arrin u baahan in tallaabo laga qaado dawladuna si adag arrintaasi ay la socoto. dhinaca kale wakiilka xisbiga barwaaqada ayaa sheegay in ololihiisa doorashada uu wado hab waafaqsan sharciga anshaxa doorashada iyadoo arrintaasi laga doolayana ololihiisu uu habkaasi waafaqsan yahay saasina ay ku socoto ololaha doorashada ee wado xisbiga barwaaqadu.
guud ahaan xisbiyada siyaasadeed waxay ku baaqeen in loo baahan yahay in la tixgeliyo sharciga ololaha doorashada xilliga loogu talagalay iyadoo laga faa'iideysanayo oo la tixgeliyana sharciga sareyntiisana la ilaaliyo gaar ahaan xilliga ololaha doorashadu uu socdo. waxaa la qabtay barnaamij dhiirigelin iyo aqoonsi lagu siinayo shakhsiyaad iyo macadyo la sheegay inay sameeyeen dadaal tusaale u noqon karo oo laga dhigan karo tusaale oo Itoobiya lagu nabadaynayo. barnaamijkan oo ay soo diyaarisay hay'adda lagu magacaabo East Africa Events ayaa waxaa loogu talagalay in shakhsiyaadka nabadda iyo sidoo kale macadyada waaweyn ee gacanta ka geysta nabadaynta in ay lagu abaalmariyo isla markaana moraalkooda lagu ilaaliyo oo sidoo kalena kor loogu qaado sida ay dadka kalena tusaale uga dhigan lahaayeen. shakhsiyaadka abaalmarinta aqoonsiga iyo aqoonsiga la siiyay ayaa ka kala socda dhammaanba deegaanada dalka iyo labada maamul magaalo ee dalkan Itoobiya. وهاجك داوديال هاتنا ورركا عالمكا دلكا إنديا ayaa la sheegay in 24 saacadood gudahood baadhitaano lagu ogaaday in muwaadiniin dalkaasi India oo 200,000 oo qof kor u dhaafaysa laga helay fayraska corona. warku waxa uu tilmaamayaa in tirada dadkani ay tahay tii ugu badnayd ee cudurka fayraska corona laga helo tan iyo intuu dalkaasi India ka bilowday mawjada labaad ee safmarka COVID-19. saraakiisha dalkaasi ayaa tilmaamay in maadaama oo lala kulmay tarayari ka jirta dhinaca qalabka neefsashada caawiya ee oksijiinta loo yaqaano dadaalo dheeraad ah loogu jiro sidii dalka dibadiisa loogala soo degi lahaa qalabkaasi oksijiinta ama neefsashada dadka ka caawiya. inkastoo ay saraakiisha wadankaasi ay sheegayaan in caasimada dalkaasi ee Hindiya ee New Delhi oo ay ku nool yihiin 30 milyan oo qof lagu soo rogay xayiraado dhinaca isu socodka ah, haddana waxaa la sheegay in ay qayb ka noqon karaan in kor u kaca fayraska corona ee xaaladuhu sidiisii hore ay tahay qaybaha kale ee dalkaasi Hindiya. dalka Czech